waxaa muddo 14 maalin ah ka la geliyay gaadiidleyda gawaarida yaryar ee caasileeda u safri jiray deegaanada Shabeellada Dhexe ilaa Galgaduud sababta ayna ku sheegeen darwalada kaxaysa gaadiidkan in wadooyinka xeebta ee xiriirsan Muqdisho ilaa gobolka Shabeellada Dhexe ay yaalaan isbaarooyin aad u tiro badan kuwaas oo markii hore ka qaadi jiray gaadiidleydan lacag dhan $40 haddana lagu amray inay dhiibaan lacag cadadeedu gaarayso $140 taasina ay iyagu ku adkaatay inay dhiibaan qarashkaasi deegaanada ay xilligan wadooyinkoodu ka cabanayaan gaadiidleydan ayaa kamid ah Cilmacaan Warshiq Cadale iyo dhamaan deegaan xeebeedka Shabeellada Dhexe oo gaadiidleydan marin u ah xilliyada ay safarka galayaan waxa ayna sheegeen inay isku dayeen inay la xiriiraan madaxda maamulka Hirshabeelle balse aysan u suurtagelin in cabashadooda laga jawaabo ama ay gudbistaan waa kuwan qaar kamid ah gaadiidleydan oo la hadlay Shabeelle TV ka muujinayna cabasho aad iyo aad aan soo caburina nafsadanada oo doonayna maanta inaan kala hadalno Soomaalida maqlaysa iyo dawladda iyo maamulka Hirshabeelle iyo militariga maamula dhamaantood waxaan ku sheegaynaa inaan gaadiidkanagii muddo 15 casho ah ay noo baakiman yahay sababtoo ah meel aan marnaan weynay gaadiid militari aan wax reebaynin iyo maamul Hirshabeelle oo aan u turayn dhageysanayn maqlayn baahida gaadiidka iyo dhibaatooyinka ka jira waxaan maqalnay dawladda Soomaaliya inay militariga u kordhisay mushaaraadka iyo dhaqaalaha ay qaataan kuwaas oo doonayeen inay ku nabadgeliyaan waxa weeye dhaqaalihii awalna laga qaadi jiray oo aan ku ballanay Hirshabeelle shan u laabkeed mid ka badan la soo dhigay oo cidna aan ka amar qaadan marka waxaan u sheegaynaa dawladda Soomaaliya dawladda dhexe waxaan u sheegaynaa militarigan daadsan ilaa Cadale ilaa Jowhar oo lagu yiri waxa weeye waxa laga maamulaa gaashaandhiga in laga wareejiyo oo wadooyinka ay nooga wareejiyaan shacabkii aan nahay gaadiidleydaas aan nahay waxa weeye isbaara sharciga ma diidanin waana laga qaadi jiray wixii yar oo macquul oo soo kordha xataa waa u dul qaada jirnay waxaan doonaynaa hadii dawlad ay jirto dii military jirto dii dawladda ha jirto in arintaas waxna la ka qabto oo gaadiidka meeshan yaalo waxa uu safri jiray ilaa Mudug ilaa mataqaaniga leeyahay Galgaduud ilaa Hiiraan ilaa Shabeellada Dhexe dadkii la qaadi jiray dad xanuunsanaa ku jira dadkii la soo qaajay dad xanuunsanaa ku jira oo hadda meeshii ka si ku ah gaadiidkan kiisi kale tood xagu si ugu xaniban yahay in si daryeel la helo hadii ay mataqaaniga la dawlad dayta waxaan ku mari jirnay lacag canshuur lagu sheegay Hirshabeelle ay qaaday jirtay oo waxna lagu qabtaa aysan jirin oo wada bacaadna looga wareejin oo maaragtay ammaankeena aan lagu sugin si sax aan loogu sugin god meesha ay lacagta ku qaataan horteeda xataa hadii god haadaan ka qodanta ay ku buuxin annagoo taa dib ku qabnay waxaana looga qaadi jiray $40 maamulka Hirshabeelle baabuurta Langaruusalada hoomiyaashana waxa laga qaadi jiray 30 Hirshabeelle oo dhan waxaan hadda maraynaa $140 Cadale oo la og yahay Muqdisho inta u jiro inaan ku dhiibno Langaruusalada nahay hadeerna waagi hore lacag macquul ku mari jirna hadeerna hay'ad lacagtii inuu kordhin lacagta hadda nagu sii gaaraysa $97 idan la ka qaajir lacag gaaraysa $30 hadeerna lacagtii inuu gaartay $97 waxaan doonaynaa in dawladdu ay wax ka qabato halkaas ayaa dhibaato badan ka tabanaynaa annagoo caasileed ka shaqeysay gobolka Shabeellaha Dhexe ilaa gobolka Galgaduud halkaas ayaa waxaan ka tabanaynaa dhibaatooyin fara badan mar walba kala kulano iyadoo isbaarooyinka mid kale soo boodayda ay dheernoo yihiin mid kale oo lagu tashanay qaarka tuugada isbaarooyin badan oo ana xad dhaafa ka tabanayno waxa doonayaan wax badan la ka qabto Xasan Eelaay oo ah gudoomiyaha guddiga gaadiidleyda xeebta ayaa waxa uu dawladda Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle ka codsaday inay ka hor qaadaan isbaarooyinkan tirada badan arintoodana xal degdeg ah ay u fidiyaan hadda nagala qaado waa $94 oo Hirshabeelle ay qaadato lacagta aan ku ballanay waxay aad maryan lacag markii hore aan ku ballanay maamulka isbaarooyinka maadaama la qaadayo waxay dhaheen ayadoo bilqana oo meel kasta ay taalo ay maamulku waxay nagu la ballameen inaan isbaarooyinka hal meel la isku keenayo TM wala baawur yar in hal meel la isku keenayo cadalana laga soo galayo
ceel caddana looga soo baxayo ceel cadda laga bilaabayo cadalo looga baxayo intaasaa ballanta ku kala qaadanay warkii saas ahay way soco waayey isbaaraa dhexda ka abuurantay maamulku waa u tagnay intaas maamulka markaan u tagnay waxba waa ka qabo waayeen ciidamadii waxay noqdeen ciidamo beeleed oo ku shaatigii dawladda labisan oo wax ka qabanaya aan la arag haddaan u tagnay maamulada aan u tagnayna waxayna ciidamadu waa military anagoo dawladda dhexe laga maamulaa waxba kama qaban karno saas daraaddeed gaadiidkii maadaama nimankii maamulka oo gobolkaas ka shaqeynayaan ay wax ka qaban waayeen annagana aan wax ka qaban weynay waxaan go'aansanay oo xool aan laga helin $200 meesha ay ugu baxeen oo gobolka Banaadir ilaa iyo Hirshabeelle ay $200 baabuurta looga qaadanayo waxaan go'aansanay inaan baabuurta waxba laga heli karin inaan garaashada iska dhigano waqti kastana 9 qof ama 8 qof oo baabuurka qaadaya waxa laga qaadaya waa $40 ama $30 lacagtii meesha ku dhamaatay lacagtii marka waxa waaye wax laga reebayo ma leh marka waxaan codsanay aan maamulka wax allaale wixii na maqlayo oo dawladda dhexe waxaan ka codsanaynaa isbaarooyinkaas meesha yaala inay nagala hadlaan hadday wax nooga qaban karaan Safiya Ismaan Cabdullaahi Shabeelle TV